yahay qarax weyn ayaa laga maqlay gudaha dalka Israa'iil ayaa laga maqlay. Waa yahay qaraxan lama garanayo meeshuu ka yimid, laakiin ilaha xogaalka ayaa waxay tibaaxayaan in ay Iran ay ku soo riday gantaal naabaal ah kaas oo holciyay deegaan idil oo ah ilaa hadda la daban leeyahay. Wuxuu ku soo beegmaysaa qaraxan ama holacan weyn ee magaalada ka dhex dhacay ayaa wuxuu ku soo beegmayaa xilli Mareykanka iyo huwantu ay diyaarinayaan dagaal saddexaad inay ku qaadaan dalka Iran. Marka qaraxan ayaa hadda aad loo falanqeynaya, wuxuu leeyahay ma qarax gudaha ka dhacay baa mise mid banaanka ka yimid ayay dadku aad iyo aad u falanqeynayaan oo qaada dhahayaan. Marka waxaa loo badinayaa inuu qarax gudaha uu ka dhicin banaanka laga soo tuuray. dabcan hawl aan ku huraynin waa inaad hore u gasho way dabcan. Marka arrintaas ayay leeyihiin qaraxan marka wuxuu sababay khasaare weyn oo naf iyo maalba leh, inkastoo aan la soo tabin karin, laakiin marka qaarkood sawirada la soo qaaday laakiin cidda dhimatay lama sheegi karo oo waa mamnuuc because anaka ma aha, laakiin gudaha dalkaasi nimanka kufid yarta ah. waa yahay inta haddii aan kaga gudbino qaraxaas weyn ku soo beegmay xilli Mareykanka iyo kufid yarta ay diyaarinayaan in ay mar kale oo saddexaad Iran ay dagaal ku qaadaan. waa yahay Trump ayaa waxa uu sheegayaan iyo nimankan kufid yarta hadda ka hadlaynay ayaa waxay aad iyo aad hadda ay tabaashushaysii ama diyaar garow weyn ay ugu jiraan sida ay mar kale dagaal ugu qaadi lahaayeen dalka Iran. dabcan intii hore waxay ahayd falanqeyn iyo xagga ka istaag iyo xagga ka istaag. marka Iranna waxaad moodaa hadda maadaama Mareykanka Donald J. Trump uu u tagay dalka China waxyaabo badan oo la soo xirtay ayaa waxay sheegayaan ama hawlaha waxay tibaaxayaan dabcan halkaasi in ay dagaal la qalqaalinayo mar kale in faran la saari doono ayay leeyihiin. waxaa kaloo jirta nimankii ahaa Imaaraat ayaa lagu dhiiqa loo geliyay. dhiiqa waxa loo geliyay oo leeyahay waa inaad diyaar garowdaan oo u diyaar garowdo baa leeyahay sida aad gulufka colaada aad qayb uga noqon lahaydeen. nimankan horta liwaha ayaa dhiiqa loo gelinaya. waa yahay waxa ka inta haddii aan kaga baxno Trump iyo nimankan in ay qalqaalinayaan hawshaasi. haddaba dagaalkan hadda laba qaybood ayaa huwanta qayb bay ka hadlayeen oo qaab bay uga hadleen dagaalka. Iranna qayb bay uga hadleen. reer Iran waxay leeyihiin dagaalka ninkii ku dhintaa waa helo janno oo shahaado ayuu helay, waa mujaahid ay leeyihiin. meesha kuwa kale ay dadkooda shacabka ay ku howlgelinayaan in uu yahay dagaalkan dagaal diineed uu yahay oo iyakana in ay dambi dhaaf ay ku helayaan argagixisadan Iraaniinta in la soo afjaro. waa warka soo dhiganaya aniga maaha arrintaas. horta labadaas dala soco dalkii Ciraaq markii dagaalka Mareykanka ku qaadayay waad xasuustaa Saddam Hussein laba rakac uu tukaday. Bushna waa kii aad xasuustaan ninkii xasuusta garanaya in uu dagaalku u yahay laba dhinac dagaal wuxuu ahaa dagaal diineed ayuu ahaa. hadda tii oo kale ayaa meesha ka muuqata. waan gartay maadaama Mareykanka madaxweynihiisa uu ka soo tagay Beijing caasimadda dalka China uu ka soo tagay, hadda waxa uu weydaaranaya Trump ninkii jiray Putin 20ka bishan hadda aan ku jiro mise 18ka ma 18ka ma 21 ilaa 23 laakiin 20ka loo badinayaa inuu halkaasi u tagi doono ninka la yiraahdo Mr. Putin madaxweynaha dalka Ruushka. waxay leeyihiin falanqeeyaashu ay ka hadlayaan maxaa uu u tagay meesha uu ka doonaya. waxay leeyihiin dagaalkan ayaa laga wada hadlayaa maadaama ninkii Trump meesha uu yimid kana tagay warbixin la diidan yahay in ay marto warbaahinta oo qaab kale ay u marto ayaa la diidan yahay. marka waxaa la rabaa shafawi waxa la yiraahdo face to face in iska hor imaadaan informationkii uu Trump ka tagay in
ninka yiraahdo Chinese-ka iyo ninka yiraahdo Ruushka madaxweynayaashooda inay isku sheegaan iyo wax dagaalka Iran laga sameyn lahaa waxaad moodaa way leeyihiin wararka qaar waxay leeyihiin ma la arkaa China inuu dhabarka ka toogtay Iran oo ka baxay garabka ka baxay qaar waxay leeyahay may istiraatiijiyadiisa China ayaa ka weyn hatta muuqaal hore waxa ku soo gudbinay in uu madaxweynaha Mareykanka uu kala hadlay China sida shidaalka ka gado laakiin lacagta dollarka kaga iibso oo asana uu yiri kaga gadan maayo anagu waxa naloo yiri ma waan gartay arintan waa la sheegay Putin inuu imaan rabo meeshaas waan yahay Iran oo haddana warka hor leh ayaa soo baxay warbixin hor leh Iran ayaa waxay ka dalbatay shacabka reer Iran ciidamo 1 milyan ayay codsatay marka waxay lahayd reer Iran waxay islahaayeen soo 1 milyan codsanaa 500 baa inay maamul marka waxay yiri 1 milyan oo ciidan oo mutatawiciina oo dagaalka ka qayb galaya ayaan u baahanaa maxaa dhacay marka 1 milyan iska day 12 milyan baa yahay 11 milyan ayaa timid oo dagaalka diyaar u ah inay la galaan Mareykanka iyo huwintiisa warkaas ayaa hadda soo baxaya waayahay ciidanka Mareykanka ama Pentagon-ka warbixin ka soo baxaysa diyaar garow weyn maadaama uu socdo ciidanka Mareykanka horta aan qodobkaas aan ku laabto Iran waxay codsatay shacabka reer Iran ay ka codsatay in ay 1 milyan oo mutatawaca in la helo oo iskood u dagaalamay oo jannada galay reer Iran waxay soo diiwaan galiyeen 12 milyan oo qof oo u diyaarsan dagaalka inay galaan waan yahay Iran marka arrintaas fajac bay noqotay dadku inay dagaal ay u heelayihiin nimanka Karbala isku waxaynahay dagaal bay diyaar u yihiin inay shahaado inay helaan oo Mareykan la dagaalamaan arrintaas ay reer Iran ayay 12 milyan baa diyaar laakiin waxay marka 12 milyan dhowr milyan bay ka qaatay 5 milyan bay ka qaatay inta kale waxa la rigiyaatay ii jooga waa kuwa aan joogtahay waxa yiri markii nidii baahdo soo imaado way arrintaas hadda caawa ayaa cusub Iran in dadkeeda shacabka oo dhan ay diyaar u yihiin in ay dagaalka galaan oo ay ka mid dhaliyaan inta hadii aan kaga gudubno ciidamada Pentagon-ka loo yaqaan ee Mareykanka ayaa 10,000 oo gantaal bay dalbadeen in baray dhaxalka 10,000 oo gantaal ayay codsadeen oo maxay u codsanayaan warkan waa fiiriyaa waxay leeyihiin maadaama aan dagaal u diyaar garoobayno maraakiibtina ay gujiyada ay joogan waxa la dhafa oo la socdo in lagu qaado hubka nuclear-ka la arka maadaama loo barbardhigo China iyo Ruushkana ay caawinayaan waa yahay Mareykanka ciidamadiisa Pentagon-ka waxay codsadeen 10,000 oo gantaal oo loo yaqaan gantaalaha loo yaqaan cruise missile loo yaqaan ayay codsadeen inta hadii aan kaga gudubno Mareykanka iyo xulufadiisaba Xuutiyiin maxaa ka dhacay marka Xuutiyiin waxay la yimaadeen ajada hor leh waxay yiraahdeen ma qalqaalinaysaan idinkiyo koofiyad yar Mareykan ma qalqaalinaysaa inaad Iran dagaal ku qaataan ha waa qalqaalin dabcan way anakuna waxaad ogaataan inaan dagaalka soo galayno ogaada hormar way dhahay ilaa adduunka isku boqtay marka haday Xisbullah qayb bay ka tahay Pakistan garab istaagay Iran garab istaagay waayahay waxa kala jirta nimanka la jiray Aisha Chechnya ayaa jirta marka dagaalku waa la cabsanayaa wadnaha farta lagu hayaa reer Iranna way u diyaar garoobeen ayagoo gantaaladii Mareykanka uu soo tuuray nashqadaystay oo daabacay